bismillahi raxmaani raxiim saaxiibayaal soo dhawaada maanta videogan waxaynu kaga hadli doonaa sidii aad ku ogaan lahayd in gmailkaaga xogtiisu ay baxday hadday noqoto passwordska hadday noqoto daatadada ku khaaska ahayd ee dhalashadaada iyo locationkaaga iyo waxyaabaha markaa inay baxday si lagu ogaado. markaa si aad u ogaato waxaad geli doontaa website-kan aad iman doontaa ama mobilkaaga ka geli kartaa ama computerkaaga kolba kii ku dhow. markaa have pounded baad ku qori marka inta ku qorto website-kan ku keeni markaa wuxuu tus doonaa muxuu interface-kan marka haddaynu xoogaa hoos u degno xaga waxaad ku arki kartaa muxuu ahaa 550 website oo pounded oo ku dhacay muxuu ahaa in xogtoodii la helay. marka 550 website intaasoo 12 billion account ayaa laga dhex helay marka waxaan badanaa inagu gmail-adeena waxaanu isticmaalaa inaynu website-yada ku galno ama cashar aynu ka dhigano ama siyaabo kaleba login-ka inoogu xidhaanay. marka website-yadaas ama application ay leeyihiin oo application mobilada loo isticmaalay leeyihiin ama iyaga toos website-yadooda u booqanaysa deedna markaa xagaasaad gelisay xogtaadii gmail-kaaga iyo waxaagii halka ku noolayd iyo wixii deedna taasaa markaa waxay noqon weyday website-kii wuxuu noqon waayay mid secure serverkiisa iyo iska hajiya attacks-ka faraha badan lee black hat-ka kaga imanaya. marka halkaasay ka baxday baa laga yaabaa markaa daatadu bal markaa inuu haddaba 12 billion uu ku jiro muxuu ahaa gmail-kaagu si aynu u ogaano markaa website halkan aynu ku qori doonaa muxuu ahaa gmail-keenii tusaale ahaan kan ku qori doonaa markaan ku qorno marka gmail ku qorto xaggan ku dhufan ama interbatin ama xaggaas ku dhufan mobil isticmaalka pounded-kaas ku dhufan doontaa deedna sida xaggan nooga muuqatay marka pounded baa ku dhacay website-ka muxuu ahaa gmail-ka pounded-ka ku dhacay marka laba data breach uga dhacay marka laba meelood ama website-yada ahaadaan ama application-a ahaadaan laba meelood bay markaa daatadii gmail-kaas ay ka baxday. marka halkan waxaad ka arki kartaa two data breaches and found no paste meel kaloo loo isticmaalay ma jirto markaa oo maxamedinta dee hackersku black hat-kan markaa markuu xogtaadii helo siyaabuhu doon uga faa'iideysanaya ama legal ha noqoto ama illegal ha noqoto waa u iibinayaaba wuxuu ka iibinayaa hackerska kale deedna gmail-kaaga waxay isticmaali karaan waxaan legal ahayn deedna markaa halkan kugu tusaya marka haddii la isticmaalay markaa lama isticmaalin good news-ku waa intaa bad news-ku laakiin waynu data breach dhacay oo laba meelood ka dhacay marka labadii meelood ka dhacayna waa kuwan site-owdayga iyo super VPN-ka labadaas ka dhacay marka data breach marka data breach-kan waa noocee compromised datadan halkan laga helay ee loo socday waa maxay waa email address-ka iyo password-ska labadaasaa markaa lagala baxay muxuu ahaa serverkii site-owdayga. kan kale haddaynu eegno isagana waxaa lagala baxay device information-kii uu ku jiray gmail-kaasi serial number-kii mobile hadduu ku jiray email address-kii muxuu ahaa geographic location-kii meesha ku noolayd IMSI number-ku waxa weeyaan mobilka muxuu ahaa serialka mobilka lafta weeyaan login histories inta meeloodaad login garaysay. markaa kana ka halis badan xogtana ka halis badan taa hore marka tan hore iyadu waa email address iyo password baa loo dan leeyahay laakiin kan adigii baa lagu helayba gebigaagii weeyaan macnaheedu mar haddii device information-kaaga la helay wuxuu yahay ma Android ba ma iOS ba ma iPhone ba kaarka ku jira waa noocee serial number-kiina muxuu ahaa ama ha noqdo card number-kaagi ama ha noqdo card number-ka serial number-kiisa aduu xog aad u weyn baa ayaa halkaa ka baxaysa marka oo kana labada ka halis badan marka labada meelood ee ka baxday loo eego. marka bal aynu eegno mid kale oo marka aynu u malaynayno inaanu muxuu ahaa data breach ku dhicin gmail-ka inaynu gelin marka inta dhamaysa marka halkan pound baad ku dhufanaysaa marka hore idin tilmaamay pound baad ku dhufato ugu raadin deedna xaggaa maxaa ka muuqda good news no poundage found baa ka muuqda wax data breach oo kan ku dhacay ma jiro. marka uu dhici karaa in data breach kugu dhaco wax laga hortagi karo maaha meelo badan inaan ka maarmi karin baad markaa muxuu gelin kartaa gmail-kaagii oo muhiimku ama casharaad ka baratid ama waxaad ka soo dhowgaraysan ama siyaabo kale baad u weyn garaysid. marka haddii aad aragto in uu ku dhacay gmail-kaagii data breach
oo xogtiisu ay baxday wax werwero badan oo culays badan oo kugu imanaya ma jiro kaliya waxaad samaynaysaa un passwordku bedbedelaysaa at that time aad ogaato inuu muxuu ahaa pawni noqday sida ugu dhaqsiya badan number gmailkaaga u bedelaysaa passwordkiisa password strong ka dhiganaysaa oo xitaa aanu haddii lagu sameeyo sidahda brute force siduu ku jabiyay adag tahay markaa passwordka muxuu ahaa adag waxaa ka mid inaad capital letterka ku jirto special character ku jiro number isna uu ku jiro intaa markaa haddii laga helo passwordkaaga way adag tahay sidii lagu jabsan lahaa waa password strong markaa taladeeda waa intaa aad baad mahadsantihiin salaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. That's the way it is. That's the way it is. Damn.